soo dhawaada saaxiibayaal marka la isku soo laabasho wacan maanta waxaan ii wadaa season Taylana taasoo aad iyo aad u xiiso badan waxaana rajeynayaa inaad ka heli doontaan balse intaana bilaabin muuqaalka like inoo soo haddii aanu cusub tahan nagu soo biir intaas kadibna inoo bilaaba seasonkeena wuxuu ku bilaabanayaa wiil lagu magacaabo Han kaasoo la jooga gacalisadiisana waxaa lagu magacaabaa Alice iyaduna waa gal fariinta Han daqiiqadaas Han wuxuu si joogta u raaligelinaya Alice marar badan sababtoo dhowr sano ka hor waxay ahayd xalfadda sanad guurada jaceylkooda laakiin Han intuu xasuusan lahaa wuxuu ku mashquulsanaa shaqadiisa taasoo ka xanaajisa Alice markaas Alice waxay ku dhahdaa maanta waxaan ku wadaa hadiyad markuu Han hadalkaas maqlo zaid ay u farxaa laakiin farxadaas ma sii jirin oo Alice way ka naxsatay waxaana u sheegtay inay uur leedahay Han uu yaabo sababtoo ah labadooda jecel ka dhexeeyay wax kale kama dhehaynin markuu iida weydiiyey Alice si degan ayay ugu jawaabtay waxayna ku dhahday uurka waxaa iska leh nin kale tani Han waxay ka dhigtay mid aad u naxa intaasoo sano ayay xirir lahayn weligiis kuma fikirin inay saaxiibtiisa qiyaami doonto markaas Alice ayuu weydiiyaa inay jeceshahay ninkaas Alice arrinkaas kama jawaabin laakiin aamusnaanteeda waxay caddaynaysa nin kale inay jeceshahay Han isagoo qalbi jabsan ayuu meesha iskaga tagay kadib waxaa aragnaa gabar lagu magacaabo Nubduna waa gabadh daadiisa barnaamijka telefishinka agaasimaha barnaamijkeedana waa saaxiibkeeda ugu dhow ee Tan waxaana jira nin kale oo madax u ah shirkadda kaasoo lagu magacaabo Minjun waa nin xun oo shaxaari ah wuxuuna isku dayaa mar walba atriishadeena inuu dhawaado Nubduna mar walba arrinkaas way dhibsan jirtay balse nasiib darro waxba kama qaban karin kadib marka ay shaqada dhammeeyaan Nubdu iyo Tan waxay aadaan dhanka guriga inta ay sheekaysanayaan Tan wuxuu u sheegay inuu rabo inuu gaarigiisa iibiyo isla markii Nubdu waxay u sheegtay inay ku fikirayso inay gaari iibsato laakiin aad bay u qaali yihiin haddii ay dhab kaa tahan aniga kaa iibsanaya gaariga si fiican ayaan u daryeeli doonaa ilmahaaga Nubduna sababta ilmaha uu tilmaamtay gaariga waxay ahayd mar walba inuu Tan gaarigiisa ula dhaqmi jiray sida ilmaha zaid ayuuna u jeclaa mar walba inuu daryeeli jiray kadib markuu maqlay hadalkeeda Tan wuxuu ka ogolaaday inuu ka iibiyo Nubduna aad ay u farxday wayna isku duubtay inkastoo aynan dareensanayn Tan si qarsoodi ah inuu jecel yahay uuna qalbigiisa dareen uga haayo dhan kale waxaan arkaynaa Han oo habeenka dhan shaqaynaya stuudigihiisa dhexdiisa Han waa farshaxaniiste sababtuu xilligan u shaqaynaya waxay ahayd kala taga Alice inuu xanuun ku dareemayo wuxuuna isku dayaa waxay ku samaysay inuu maskaxdiisa ka mashquuliyo maalinta xigta Han isagoo guri ku laaban rabo saaxiibkiisa Pete ayaa usoo diray fariin qoraal ah oo uu ku leeyahay kaali gurigayga imow Pete wuxuu ogaaday inuu saaxiibkiisa gabadha ka tagtay wuxuuna rabaa Neydii inuu dejiyo waana sababta uu yeeray gurigiisa Hanna fariinta markuu arkay kama jawaabin markuu Han guriga gaaray hooyadiis waxay bilowday inay canaanato sababtoo waxay maqashay in Alice ay ka tagtay Han awlow dhib ayuu ku jira oo waxaa ka tagtay saaxiibtiisa haddana waxaa ugu sii darsatay canaanta hooyadiisa sidaas darteed aad ayuu u xanaaqay dhan kale Tan wuxuu gaarigiisa ku wareejiyey Nubdu aad ayuu u farxday markay heshay furayaasha kadib waxaa aragnaa Han u socda dhanka guriga saaxiibkiisa Pete si uu dhowr cisho ula soo joogo markuu Han guriga waxyar u soo jirsado wuxuu arkay gaari istaaga guriga Pete aragtida tanna Han way ka xanaajisay dabcan waxaynu ognahay in Nubdu ay fadhido gaariga dhexdiisa Han uu u tago wuxuuna u sheegay inay gaariga dhaqaajiso laakiin Nubdu wuxuu sharaxday in gaariga sikadiisa uu istaagay oo uu diiday inuu kaco Hanna wuxuu go'aansaday inuu caawiyo wuxuuna bilaabay inuu gadaal ka riixo gaariga wax yar kadibna gaariga wuu kacay laakiin markuu gaariga kacsa markii Nubdu waa iska baxday Hanna arrinkaas ayuu la yaabay wuxuuna isweydiiyey gabadhan ciday tahay maadaama isagoo caawiye la hadda u mahadcelin laakiin isla markuu Han rabay inuu guriga galo Nubdu ayaa dib u soo oroday iyadoo weliba wadato dalad markuu Han wejigeeda si fiican u arkay wuu naxay isagoo istaagay qalbigiisa ayuu ku dhahay ugu dambeyntii sanado badan kadib dib ayaan ku arkay markaas waxaan dib ugu laabanaa xasuus hore Han markii uu ahaa arday dugsi sare maalintii ugu horeysay dugsigiisa waxaa dhibay arday ka weyn Han dhulka ayuu ku dhacay muraadihii indhahana way ka dhaceen Nubdu ayaa u timid muraayadii ayana u soo qabatay waxayna u gelisay wejigiisa si degan markuu Han arkay qofkii caawiyey durbadiiba wuxuu u qaaday jacayl xilligaas Nubdu waxay ka weyneed 5 sano Han wuxuu lumiyey kaarka magaca iskuulka Nubduna Han mar walba waxay ugu yeeri jirtay Bank Han aad ayuu u jeclaa magacaas Nubduna waxay bixisay gacanteeda gacmo gashiga oo u samaysan qaab xidig ah Han ayay u gelisay iyadoo tiri laga bilaabo maanta waxaan nahay saaxiibo kadib waxay aragtay timihiisa waxayna ku tiri timaha waa kuwo qosol leh marka dambe iska bedel oo qaab kale u samaysan Nubduna markaas meesha ayay iskaga tagtay laakiin daryeelka u samaysan Han wuxuu reebay waraad weyn Han wuxuu hibeeyey wadnihiisa oo dhan asagoo jacayl u qaaday markaas sheekadu waxay kusoo laabtaa isla waqtigan Nubdu waxay ka raaligelinaysaa Han caawinaada gaariga laakiin Han xataa ma dhegeysan karo hadalkeeda sababtoo wuxuu ku jiray daawashada wejigeeda mana kasii jeedin karo indhihiisa jacaylkiisa ugu horeeyey Nubdu ma aqoonsan Han inuu yahay sababtoo ah markuu iskuulka dhiganaya wuxuu ahaa qof ka duwan qofkan hadda wuxuu noqday nin aad u weyn oo qurux badan Han wuxuu galay guriga markaasna waxaa aragnaa Han inuu weli gashan yahay gacmo gashiga xidigta mar walbana wuu daryeelaa sababtoo macno weyn ayuu leeyahay kadib markii ugu horeysay waxaan wax ka baran doonaa nolosha Mundu tan iyo carruurnimadeedii waxay ahayd gabadh mar walba si aad u adag u shaqaysa laakiin dhibku wuxuu ahaa mar kasta oo ay lacag shaqaysato hooyadeed waxay lacagtaas inta ugu badan sii jirtay walaalkeeda ka yar waxay ahayd wax iska cad in hooyada ay walaalka ka jeceshahay iyada arrintaas darteed Nubdu mar walba waxay dareemi jirtay dhaawac iyo murugo daryeel xoogana kama haysan dhankaas iyo waalidka kadib waxaan wax ka baranaynaa taariikhda hore ee Tan shil baabuur oo aad u naxdin
badan ayuu ku waayay labadiisa waalid. Wixii ka dambeeyay waqtigaas wuxuu ahaa mid gebi ahaanba kaligiis ah, ma uusan lahayn wax qoys dhow ama qaraabo, wuxuuna aad iyo aad ugu xiisi jiray waalidkiisa inta badan. Intaas kadib waxaa aragnaa carruurnimadii ahaan waalidkiisa ma ahayn guurkooda mid kheyr qaba, waxayna ahayn kuwo si joogta u dagaalama maalin kasta. Mar kasta oo hooyadiis ay xanaaqdo waxay carrada kula dhici jirtay Hana mar walba wuxuu arki jiray waalidkiisa oo isdagaalaya, sidaas darteed Han isna wuxuu soo qaatay carruurnimo aad u dhib badan oo mugdi ah. Markaas habeenkii xig waxaa aragnaa Han oo wata baskiil ku shaqeeya koronto, wuxuuna daawanayaa sawirada Nabduu ee Instagram-ka. Si lama filaan ah baskiiligii ayaa istaago, Nabduuna waxay u soo baxday inay qashin turto. Han wuxuu u arkay fursad arrinkan, wuxuuna Nabduu ku yidhi, soo ma tiid gabadhii xaysiinaysa baskiiligan korontada, kani waa baskiil xun, durbadii buu halaabay. Nabduu aad bay u egtay waxayna tiri, mudane kani waa qalab koronto ah, wuxuuna leeyahay jaajar, kaliisna iska socon maayo. Guriga tag oo qaada jaajarka, waa inaad korontada gelisaa. Han wuxuu yidhi, waxay ahayd inaad taasi sheegto markaa xaysiisa samaynaysay. Nabduu way xanaaqday, waxay tiri haddii sidaas tahay markii xigta wax walba waan sharxi doonaa, hadda iska tag mudane. Han oo iska taga asagoo hoos ka qoslaayo, sababtuu saas u sameynaya wuxuu rabay inay xasuusato. Maalinta xigta Minju wuxuu ku qasbay inay xirato Nabduu dhar aad u qaawan, iyadoo weliba dharkaas ku qabanaysa barnaamijka live-ka. Saaxiibkeedii Tan wuu ka xanaaqay arrintaas darteeda. Markii live-ka soo galeen Jun wuxuu ka siibay jaakadii ay dhexda ku xiratay intii live-ka uu socday si uu jirkeeda u muujiyo. Nabduu way dhibsanaysay laakiin si xirfad leh ayay u boobsiisay live-ka iyadoo xaysiiska dhamaysay. Hanna markaas wuxuu ka daawanaya shaashadda asagoo weliba zaid u xanaaqay. Markii uu live-ka dhamaaday Tan ayaa u tagay oo asturay. Habeenkii Nabduu markay imaaday guriga waxay aragtay comment lagu caynayo, dadkana waxay lahaayeen lacag darteed ayay waxaan u samaynaysaa. Han isna wuu arkay boostiga wuxuuna u qoray comment dheer oo uu ku leeyahay, ma xadidna waxaad u samayn kartaa lacag darteeda, laakiin si kiis ayuu farta uga dhacay oo uu boost u gareeyay. Nabduu way xanaaqday, Hanna wuxuu u soo diray fariin luuq ah oo uu ku leeyahay waxaan rabay inaan kugu digo si aadan mar kale u samayn. Nabduu waxay ugu jawaabtay commentii Telegram kugu filnaan waayo ma luuqa iga soo daba imaaday. Fariimo badan ayaa u soo dirtay Hanna wuu ka aamusay. Nabduuna arkaasi ka xanaaqday waxayna si toos u soo wacday Instagram-ka Han. Han markuu arkay wicitaanka wuu baqay laakiin farta ayaa uga dhacday. Nabduu ayaa isla markii ku qaylisay, waxayna ku dhahday meel walba ku dhumanaysa waan kusoo heli doonaa. Hanna markuu arkay xanaaqeeda wuu ka baqay. Muuqaalka xiga waxaa arkaynaa in Nabduu ay rabto inay la kulanto walaalkeeda. Walaalkeeda wuxuu ku riyoodaa inuu noqdo cunto kariye caan ah, laakiin xirfadiisa cunto karinta weli maaha mid ku filan oo wanaagsan. Arrintaas darteed Nabduu waxay go'aansatay inay ka diiwaangeliso iskuul laga barto cunto karinta, laakiin dhibaatadu waxay tahay in lacag iskuulkaas laga rabo ay tahay mid aad u qaali ah, iyadana hadda ma haysato wax ku filan. Sidaas darteed waxay wacaysaa Tan waxayna ku codsanaysaa caawinaad dhaqaale. Kadib markuu maqlay dhibaatada haysata Tan, durbadii wuxuu yidhi, okay waa ku caawinayaa. Nabduu aad iyo aad ayay u farxday waxayna tiri, alaab kasta oo aad rabto inaad xaysiisato waan ku xaysiinayaa, kaliya fadlan iga caawi inaan lacagtaas helo. Daqiiqadaas qof ayaa soo garaacay gambaleelka albaabka. Markii ay Nabduu albaabka furtay, waxay aragtay Han oo banaanka taagan. Sida aan hadda ogaanay labadoodu waxay noqdeen daris, sababtoo guriga ku dhagan Nabduu waxaa iska leh Pete, Han saaxiibkiisa. Hanna hadda wuxuu ku nool yahay halkaas. Han markaas wuxuu ku yidhi Nabduu, anigoo raacay taladaadii waxaan soo iibsaday alaabtan, laakiin garan maayo si loo isticmaalo, ma iga caawin kartaa fadlan? Nabduu way ka aqbashay waxayna ku tiri soo gal gudaha dabcan. Han aad iyo aad ayuu u farxay, laakiin xaqiiqada tan waxay ahayd marmarsi uu soo qorsheeyay. Ujeedadiisa dhabta waxay ahayd kaliya inuu waqti la qaato Nabduu, si tartiib tartiib ahna saaxiib ay u noqdaan. Nabduu si degan oo dulqaad leh ayay ugu sharxaysaa sida loo isticmaalo alaabtaas, laakiin Han gebi ahaanba ma u fiirsanayo hadalkeeda. wax kasta oo ay sharaxayso isagu wuxuu ku mashquulsan yahay oo kaliya inuu eego wejiga Nabduu. Markay Nabduu dhamaysay sharaxaadii oo dhan, waxay ku tiri hadda waa iska tagi kartaa. Nasiib daro Han ma rabo inuu ka tago guriga, wuxuu rabay inuu la sii joogo in yaroo dheeraad ah, laakiin Nabduu waxay ku qasbaysaa inuu guriga ka baxo. Dibadda ayayna u saartay. Kadib waxaa arkaynaa Han iyo saaxiibkiisa Bob oo booqanaya shirkadda qaabilsan xaysiisyada. Sida aan ogeyn inuu Han yahay farshaxaniiste, wuxuu kaloo hibo u leeyahay abuurista naqshadeynta iyo xaysiisyada alaabta. Dhan kale waxaan aragnaa Nabduu iyo Tan kuwaasoo ka shaqeynaya shaqada iyagoo isla markaana suuqa ku dhex tukaamaysanaya. Labadoodana waxay qaadaan waqti aad iyo aad u farxad badan, waxayna iska qaadaan sawirro badan. qof walba wuxuu ku raaxaysanaya la jooga midba mid kale. Markay Nabduu ka codsataan inuu soo diro sawirradii ay galeen, Tan wuu diiday, badalkeedana sawiradaas wuxuu haystay naftiisa sababtoo ah sawiradaas asaga waxay u ahaayeen wax aad u qaali ah. Intaas kadib Nabduu iyo Tan waxay imaanayaan isla shirkaddii xaysiiska ee Han uu ka shaqeynayay, waxayna rabaan dad xirfad leh oo u sameeya xaysiisyo wanaagsan si alaabtooda u helaan macaamiil badan. daqiiqadaas Han ayaa qolka soo galay. Han iyo Nabduu markayse arkeen labadooda way naxeen. kadib markuu maqlay qorshaha shaqada Han wuxuu yidhi, abaalwelinna waxaan bixin doonaa dadaalkayga ugu dambeeya, waxaana idin samayn doonaa xaysiiska ugu fiican ee alaabta. Markay maqashay hadalkaas Nabduu way dhoola cadaysay iyadoo salaamaysa. season-kan xalaqadiisa koowaad halkaas aynu eegta saaxiibayaal. insha Allah waqti ugu dhow ayaan soo dhigi doonaa xalaqada xigta. sidoo kale season-ka hore waan joojiyey maadaama uu cilado u keenay janaalka. insha Allah kan ayaa noo wadi doonaa. inta haddaad soo gaarto muuqaalka like inoo sar haddii inoo cusubtaa nagu soo biir. sidaas iyo nabadgelyo.